بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkii baynu kasii wadaynaa casharada carabiga ahaa. casharkii labaad baynu maanta dhigaynaa darsu thani. waxaanu rabnaa in la sii sheergareeyo oo dadka kalena ay ka faa'iidaan, oo qofka hadduu xataa yaqaano sii sheergareeyo waayo ajri ugu jira. carabigu waxay fududeynaysaa culumta kala diinta inaad ku baratid, tafsiirkii kutubtii kale quraanka sida loo akhriyo xataa lafteeda kusii fududeynaysaa. marka waxa weeyaan dadka in loo sii gudbiyo weeyaan, adiguna aad si fiican u baratid qofkii aan aqoon, waqti badanna la siiyo iyo juhdi badan lagu bixiyo. marka maanta waxaynu dhigaynaa kalimaad magacyaa wanagii hab saddex qaybood u qaybinay. magacyadii baynu markaa bilaabaynaa. waxaan kaloo ku daray dhowr arrimood aad u xiiso badan oo inta badan dadka ishkaal fara badan ka galo. xagga dambe ka sheegi doona insha allahu tacaala. la socda. qaalamuun baan qorayaa. qaalamuun qaafkii weeye kaas, laam weeye, miimna waa lagu sii xidha. qaalamun qalamun qalinkaa weeyaan. qalamun kitaabun kitaab. kitaabun kitaabkuna waa kitaabkii. book weeyaan English. qalamun kitaabun. fasluna ku xigti. faslun faslun. fasalkuna waxa weeyaan class. macnayaal kale oo dhowrna wuu leeyahay oo fasalka qayb weeya sections marka la eego, laakiin inta u horeysa waxa weeyaan class. waa fasalka caadiga Soomaaliga fasal waa lagu yidhaahdaa. faslun macallinkana ku daro mucallimun. mucallimun macallinkii weeye. mucallimun. faslun mucallimun. sida loo qoraya inta badan waa in lala socdaa. waayo waladun waladun. waladun inan weeye. waladun inan. bintun bin bada imika marka waa bin. haye bintun qofkay gaadi ku adagtaan ula jeednaa. bintun. mid kalena kusii dar baytun. baytuna waa guri. baytun. baytun guri. iyo kursiyun. kursi weeye. waa Soomaaliga wasa kursi isbe. kursigaas ay Soomaalida ugu taqaanaay. kursiyun. waayo waxaynu kaa qalamun. qalamun kitaabun. kitaabun xarfaha sida la isugu xidhayaan u fiirsada. kitaabun. faslun. faslun. faadiyo saadku hal cod. faslun. mucallimun. kana waa mucallimun. mucallimun. waladun. bintun. baytun. kursiyun. waayo halkaa waxa weya markaa magacyadaas hadaynu English ku yara muujino waxa weeyaan ben. kana waa book. class. teacher.
teacher kana waa boy girl bintun weeye kana waxa weeyaan house kana waxa weeyaan jail qofka af Soomaali ku yiraahdo yahay baan u jeednaa inuu English taasna lagu jilciyo lagu celceliyo casharka wax tanaysaan ku celceliya inta dareeraas oo dhan maskaxda si fiican u gelinaysid waa inuu maskaxdaada qabataa hadhow markuu laga weydiiyo qofkan waa inuu qoraa qoraalku wuxuu ka saacidayaa inuu fahmo dee inuu farti ku barto way ka sii soconaynaa waxba ku raagi mayno waad ku ceshan kartaa qofku dib buu ugu ceshan karaa mar haddii uu iska duuban yahay oo wixii waa macallin aan daalayn markaa mar hadduu ku duuban yahay waad ku soo ceshan kartaa mar walba intaasoo jeer baad dhegeysan kartaa waxaan raacaynaa haddaba dhowr arrimood oo aada u muhiim ah maxay arrimahaasi waxay yihiin مثلا waxaynu soo dhiganay kitaabun kitaabun soo dhiganay kitaabun waaya kitaabun waxa ku iman kara waad arki kartaa kitaaban soo kitaaban ah waaya iyo isagoo kitaabin ah marka kitaabun baynu dhiganay kitaaban kitaabin maxay kuwanina waa la mid waxa laakiin wuu noqonayaa kitaaban marka kitaabin marba sida loo isticmaalo waxa weeye faacil iyo mafcuul iyo naxwaha marka la galaa la bartaa waxa weeyaan kitaabku hadduu isagu action ka lahaa iyo haddii kitaabka isaga la akhriyay iyo haddii la keenay iyo marba meeshu jumlada ka galo sentence ka galo iyo ficilka actionka bay ku xiran tahay object case or subject case subject form or object form sababtaas uu isu bedelayaa marka mushkilad ma laha waa isku midkii haddaad qalamun iyo qalamin agtid muallimun mualliman muallimin haddana isku mid weeye waaye haddaad rasuulun iyo rasuulan iyo rasuulin aragtid isku mid weeye taas waa taa arrinta labaad aan ku darayna waxa weeyaan iyaduna taa waxa weeyaan iyada waan maskaxda ku haysaa mid kale aan ku daraynaa ta kale waxa weeyaan waxaynu haysanaa وأنا بقولنا ما نريد كتاب أوكي كتاب واي مركز واحد على كسايضو الكتاب وفي صدى الكتاب هاي محل لابد نكون دوين لابد لنا waa isku mid oo kitaabkiun laakiin waa kitaab la isla garanayo iyo mid aan la isla garanayn halkaa u fiirsada kitaabii keen iyo kitaabkii keen waxay kala duwan yihiin mid waa kitaab la isla fahmayo midna waa kitaabun keen warcad wey kaas waxa weeyaan kitaabii keen ama kitaab ama inan haye haddaan walad yidhaahda waladun inan alwaladuna inankii rajulunin arrajuluninkii saasay soconaysaa mid waa la isla garanayaa midna la isla garan maayo definite iyo indefinite baa la yidhahdaa definite kana waxaa yidhahdaa indefinite waaye mid waa la isla garanaya midna la isla garan maayo taana waa la fahmaan marinaya maskaxda ku hay marka alifka iyo laamkaasi waxay kordhinayaan waxay soo kordhinayaan in wixii la isla garto haye
haddii laga saaro kanna waxay noqonaysaa waxaan la isla garanay waayo arrin kaloo isna aad u muhiima ku jira oo in lagu baraagsanaado ah halka alifka iyo laamka marka laga saaro ashaa la jaro halkaasu kitaabu bay ahayd markii hore laba dambay lahaan jirtay labadeedii dambe kii waa loo soo celinayaa maskaxda ku haya kaasna damihii labaad laga tuuray ayaa kitaabun bay ku noqonaysaa haddii alifkii iyo laamkii la soo celiyana maxaa dhacaya oo alkitaabu noqoto labadii dambe mid baa laga tuurayaa alkitaabu way noqonaysaa laakiin alifka iyo laamkeedu ku jirto halkan alkitaabun ma jirto iska ilaalitaa waxa weeyaan tawiintaa saaran iyo alifka iyo laamkaasi way kala xanaaqaan marka waxa weeyaan marka alifka iyo laamka ay qaato magacii ama kelimadda qaadato tawiintii mid baa lumaya hadday bin ahaydna mid baa ka lumaysa hadday ban ahaydna mid baa ka lumaysa oo alkitaaba bay noqonaysaa hadday kitaaban ahayd taana waa in maskaxda ku haysan warcad soo maaha intaas waa in la xusuusnaadaa arrinkaas iyo arrinkaa laba keys aada u muhiima weeye